iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta odayaashu ay ka dhiibtaan codkooda ugu dambeeya doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka. Musharaxiinta madaxweyne ayaa Jimcihii oo diiradda waxay saareen dadaalkooda ololaha 4 gobol oo dhaca bartamaha galbeedka Mareykanka, kuwaasoo si aad ah loogu loolamayo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump olole ka sameyn doona gobolka Michigan, Minnesota iyo weliba Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden uu ka ololeyn doono gobolka Minnesota, Michigan iyo weliba Iowa. Michigan ayaa leh 16 cod ergada doorashada ah, halka Minnesota iyo Wisconsin ay gobolkiiba u leeyahay 10 ergo, lana awoodda ugu sarreysa ergadii 6 gobol. Trump iyo Biden ayaa Khamiista ololahooda diiradda ku saaray gobolka Florida ee dhaca koonfurta bari ee dalka Mareykanka, kaasoo madaxweynuhu ku guuleystay doorashadii 2016. Haddii Florida ay noqoto buluug wayna dhammaatay. Biden hadalkaasi uu ka sheegay soo bax ololihiisa oo ka dhacay bannaanka hore ee Broward College, isagoo buluugga ula jeeday midabka xisbiga dimuqraadiga. Biden ayaa ku dhaleeceeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump qabashada iyo weliba isu soo baxyo dadka badan ay ka qayb galeen, iyadoo jirta xaaladda cudurka safmareyka coronavirus oo inta badan dadka Mareykanka ka qaybgalay soo bax ay xirnayn maskarooyinka afka lagu daboosho, waxaana ugu yeeray dhacdooyin si weyn u faafinaya cudurka corona. Madaxweynuhu waxa uu faafinaya wax ka badan coronavirus, wuxuuna fidinayaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka. Biden ayaa sheegay in soo bax labaad oo meel bannaan lagu qabtay oo ka dhacay magaalada Tampa, kaasi oo laga soo gaabiyey roob halkaasi ka da'ay awgeed soo bixii la qabtay. Trump oo la hadlayay dadweynaha aad u tiro badan oo ku sugnaa barxadda gaadiidka la dhigtay garoon ku yaala magaalada Tampa, ayaa mar kale saadaaliyay in odayaal tiro badan ee Jamhuuriga ay soo bixi doonaan maalinta doorashada 3 bisha Nofeembar oo fooda nagu soo haysa. Waan ku guuleysanaynaa doorashada si aad u weyn, waad arki doontaan, ayuu madaxweynuhu ku saadaaliyay saadaashiisa ku saabsan inuu ku guuleysan doono doorashada. Trump wuxuu qorsheynayaa banaanbax kale oo gelinka dambe oo dhici doona, waxaanu ka dhicin gobolka North Carolina, laakiin cimiladu aad u xun darteed waxaa dhacay dabaylo badan. Soo baxaasi ay dib loo dhigay ilaa maalinta Isniinta, ayuu Trump saxaafadda kula hadlayay meel bannaanka ka ah gobolka. Trump ayaa khudbadiisa waxa uu sidoo kale ku sheegay madaxweynuhu inuu tallaal u heli doono COVID-19 toddobaadyo gudahooda, isagoona ballan qaaday dadka waxyeelada ay ka soo gaarto cudurka safmareyka ay bogsoon doonaan. Gobolka Florida, dadkooda ka weynta 36 sano jirka ayaa sanadkan ka koobnaan kara 3 meelood meel dadka codeynaya, maadaama cudurkani u nugul yihiin. Doorasho kasta 1996 musharaxa ku guuleystay Florida ayaa ku guuleysanaya madaxtinimada. Musharaxa ku guuleystay gobolkaasi ayaa helaya 29 ergo doorashada ka mid ah 270 ergo ee loo baahan yahay musharaxa madaxweynuhu ku qabsado inuu ku guuleysto madaxtinimada. Siday tibaaxday celceliska ra'yi ururin waaweyn ayaa suurto gelisay in warbaahinta lagu magacaabo Real Clear Politics Biden iyo Trump ayaa isku dhow gobolada Florida iyo North Carolina, halka madaxweynuhu uu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo ra'yi ururinta gobolka Michigan, Pennsylvania iyo weliba Wisconsin.